بسم الله الرحمن الرحيم. أول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواada Jogla Media. Ala Jogla Media waxaad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay ee sportska, xanta suuqa kala iibsiga, maxaa laga qoray majaladaha. Balse saake waxaad kala socon doontaan waxa ugu dambeeyay ee laga qoray naadigaada, yaase ciyaartooy ay soo iibsatay, yaase ka baxay, maxay filaysaa naadigaada. haddii aan ku horumarno wararkii ugu dambeeyay ee shalay toole ilaa ay saakadaan ee majaladaha qorayaan ee ugu weynaa. saaka waxaa ugu weyn wararkeena CR7 oo dalbaday in United uu faarijiyo, iyo sidoo kale madaxweynaha Barcelona Joan Laporte oo asigana hadlay. muxuuse ka yiri De Jong, Dembele, Koundé, Lewandowski. intaan gudagalin barnaamijkeena waxaa kaa codsanayaa haddii aad ku cusub tahay channelkan, fadlan subscribe saar, like dheh si uu gaaro asxaab badan. aad iyo aad kaa mahadcelina daawashada muuqaalkan. kusoo dhawaaw warkii oo tafatiran oo dhammaystiran. xidiga kooxda kubadda cagta Manchester United CR7 ayaa faaruji doono naadiga kubadda cagta Manchester United sida hadda afkiisa ka cad haddii uu ka dhabeeyo. CR ayaa dalbaday inuu isaga tago cariga Ingiriiska ama naadiga kubadda cagta Manchester United. sida la filayo, United hadduu ka tago ma uusan u ciyaari doono naadi kale oo Premier League ah, maadaama oo hore ugu diiday naadiga kubadda cagta Manchester City, kaas oo intuusan kusoo biirin Manchester ay ahayd inuu tagi karo. laakiin haatan CR ayaa carabka ku dhuftay inuu doonayo in la fasaxo si uu u tago naadi kale oo challenge u sameeyo. wallow la leeyahay wararka ugu weyn ee bixitaankiisa ka dambeysa ee tahay in suuqa kala iibsiga uu waxqabad ka muuqanin iyo dheelista Europa League. Manchester ayaa la filayaa inay xil ciyaareedka soo socdo dheesho horyaalka kubadda cagta ee Europa League, kaasoo ah horyaal ka hooseeya UEFA Champions League oo taariikhdiisa marnaba uusan dheelin. CR oo midaas wakiilanayo ayaa dhahay, waxaan doonayaa inaan baxo ee Manchester iska fasaxa. sidoo kale suuqa kala iibsiga ayaana albaab kale u ah oo doonayo inuu isaga tago naadiga kubadda cagta Manchester United, maadaama Manchester ilaa hadda aysan ku dhawaaqin wax heshiis ah, laakiin ay la gaartay hal xidig oo kaliya dambeedka bidixna ka ciyaara. Malaysia ayaa ah xidiga kaliya ee Manchester ilaa haatan ay la siixatay, wallow asiga xataaba aan la soo bandhigin. laakiin De Jong iyo xidiga kale ay Manchester raadinaysaa si ay ugu qanciso xidiga kubadda cagta ee Manchester United iyo xulka Portugiiska CR7. CR ma ku adkaysan doonaa mise laba go'aan midkooda ayuu hadalkaas u yiri. inuu naadiga uu ka tago ee ka dhab tahay oona doonayo inuu naadi kala raadsado si uu u dheeliyo UEFA Champions League, ama wuxuu doonayaa in Manchester uu suuqeeda kiciyo xidigo oo ku dagaalamana oo loo keeno, maadaama uu yahay xidig doonayo inuu horyaalka kubadda cagta Ingiriiska ama koobab kale uu ku guuleysto xilli ciyaareedka soo socdo, maadaama ay ka mid tahay xilli ciyaareedkiisa ugu dambeeyay ee naadiga kubadda cagta Manchester United iyo dhammaan guud ahaan ciyaarista kubadda cagta. sida la filayo waa 37 jir, wuxuuna doonayaa mar dhow ama maraa dheereen koob adduunka kadib inuu kabaha siibto. CR ayaana sidaas majaladaha loogu qorayaa saakay ilaa iyo xalay toole. adig ahaan ma kula tahay in naadiga kubadda cagta Manchester United uu ka tagi doono xidiga kooxda kubadda cagta Manchester United Cristiano Ronaldo? haddii uu ka tagano yaa u rajeynaya inuu ku biiro, yaase la filayaa? commenting haddii aad ka ilowday inaad like dhahdo ama subscribe aad saarto, fadlan hadda subscribe saar, like dheh, siina share gare oo la wadaag asxaabtaada. aad iyo aad kaa mahadcelina daawashada muuqaalkan. sidoo kale wararkeena ugu waaweyn waxaa ka mid ah madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa arrimo badan taabtay oo la xiriira naadiga kubadda cagta Barcelona, kaasoo koow ka ahaa Frank De Jong. De Jong wuxuu dhahayay waa xidig ka tirsan naadiga kubadda cagta Barcelona, wuxuu doonayaa inuu sii joogo halkan. waxaan aragnay naadiyaal badan oo xiriir la soo sameeyay, laakiin ma doonayno inuu baxo 100%. wuxuu sii joogi doonaa naadiga kubadda cagta Barcelona. heshiis oo naadi aan la gaarina ma jirto, kaliya waxaa jira arrimo dhaqaale, waana xali doonaa ayuu Joan Laporte
oo sidaas carabkiisa kula dhuftay. Sidoo kale waxaa jira arrimo kale oo ka hadlay sida Roberto Lewandowski oo wax laga weydiiyey wuxuu yiri Roberto Lewandowski waa xidig ka tirsan naadiga kubadda cagta Bayern Munich. kaliya waxaan dhihi karnaa waa mahadsan tahay maadaama uu yiri waxaan doonayaa inaan ku biiro Barcelona. waa soo dhaweyneynaa, waa xidig weyn laakiin waa xidig Bayern Munich ka tirsan. kaliya waa kaaga mahad celineynaa dooqaada aad siisay naadiga kubadda cagta Barcelona. wuxuu iska ilaalinayaa in uu naadi kale oo waxyaabo badan oo kala kulmo. wuxuu diidan yahay inuu naadiga Bayern Munich oo waxyaalo cilaaqad xun iyo ganax oo kala kulmo. sidaas awgeeda hadalkiisa waa uu gaabsaday. wuxuu dhahayay waa kaaga mahad celineynaa dalbashadaada kusoo biirista naadiga kubadda cagta Barcelona. waana jeclaa lahayn inaa mar un imaatid. sidoo kale Laporta ayaa ka hadlay arrinka Rafinha oo ku aadan kusoo biirista naadiga kubadda cagta Barcelona. Rafinha ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu doortay naadiga kubadda cagta Barcelona. madaxweynahan wuxuu yiri wuxuu doonayaa inuu ku biiro naadiga kubadda cagta Barcelona. wada xiriir fiican waa la yeelanay, leedisna waa la hadalnay. laakiin waxaa jira naadiyaal badan oo doonayo laakiin asiga wuxuu doorbidayaa inuu ka dago Nou Camp Stadium. sidoo kale mar wax laga weydiiyey arrinka Dembele ayuu yiri madaxweyne Laporte waa uu aqbalay shuruudaheena dhaqaale, wuu joogi doonaa waqtina kuma xadidin oo wuxuu sameyn doonaa maskaxdiisa xilliga uu doono. sidaas ayuu hadalkiisa kusoo gabgabeeyey. waana wax aad iyo aad u fiican hadiiba Dembele oo naadiga kubadda cagta Barcelona sii joogayo. sidoo kale waxaa wax laga weydiiyey xidigihii beec horta kusoo qaateen. madaxweyne Laporte ayaana hadalkiisa ku adkeeyey oo yiri ma dooneyno in xidigo badan aan sanadkan aan lumino, laakiin xidigaha joogaan aan weli heshiiska laga siixin oo ka mid yihiin labada xidig Frank Chiesa iyo Christensen. Chiesa ayaa ka yimaaday naadiga kubadda cagta AC Milan, halka Christensen oo asigana beec horta uu imaaday naadiga kubadda cagta Chelsea. wuxuuna dhahay waan dhamaystiri doonaa heshiiskooda, waana lasoo bandhigi doonaa. Chiesa ayaa lagu balamay in Arbacada lagu dhawaaqo, halka Christensen khamiista lagu madalsan yahay in garoonka Nou Camp lagu soo bandhigo. sidoo kale wararka maanta ugu weyn waxaa ka mid ah xidigii hore Bayern Munich, Barcelona, Juventus, Inter Milan Arturo Vidal ayaa lagu soo waramayaa inuu firaaqay doono San Siro ee ku dheesho naadiga kubadda cagta Inter Milan, kaasoo la rajeynayo in xil ciyaareedkan oo faarujiyo oosa horyaalada kubadda cagta oo ku biiro. laakiin hadda waxaa la sheegayaa in Arturo Vidal oo heshiis kula jiro naadiga kubadda cagta Flamengo kuwaas oo doonayo inay soo xirigeliyaan. laakiin wax walba hadallada waa ay socdaan, meel fiican ayay marayaan, heer gabagabo ayaa la marayaa. sidoo kale wararkeena gabagabadiisa waxaa ka mid ah Dean Henderson ayaa ku biiray Nottingham Forest qaab amaaha. Manchester United ayuuna ka yimid, sidaas ayayna wax u dhaceen. sidoo kale Manchester United ayaa lagu soo waramayaa in dalab 39 malyan ee ka gudbisay xidiga ay kula xifaaltamaysa naadiga kubadda cagta Arsenal eena ka tirsan naadiga kubadda cagta Ajax Lisandro Martinez, kaasoo aad loogu doonayo horyaalka Ingiriiska. laakiin waxaa Old Trafford kusoo dhaweey karo haddii uu ogolaado ama dalabkaas ay Ajax aqbasho naadiga kubadda cagta Manchester United macalinkiisii hore Erik ten Hag. sidoo kale wararkeena waxaan kusoo gabagabeyneynaa xidiga hadda Manchester United ay ku dhawaaqday Malaysia ayaa usoo duulay shalay toole magaalada Manchester si uu u dhammaystiro ku biiristiisa iyo tijaabada caafimaad ee maslaxariyada. haatan waa uu tijaabada caafimaad ayuu marayaa, waana lagu dhawaaqi doonaa saacadaha soo socdo. haddiiba aad maqashaan rumayso, maadaama hadda warkan xilliga aad soo duubayo ku dhab yihiin inay ku dhawaaqaan. aad kaa mahad celinaa daawashada muuqaalkan. haddii aad nala soo gaartay ilaa dhamaadka, fadlan like-ta ha ka iloobin, subscribe-na saar, siina share garay oo la wadaag asxaabtaada. aad kaa mahad celinaa. waxaa tahay dhiirigeliyaha Joogla Media.